kulanti wacan oo wanaagsan daawadaya ku soo dhawaada warka danab qodobada aad ku daawan doontaan kuwooda ugu doorka rano waxaa ka mid ah maamulka koonfur galbeed oo mamnuucay shirarka ka dhanka ah dowladda federaalka ee Soomaaliya maxay tahay xilligani sababta keentay in maamulka koonfur galbeed deegaanadooda ay ka mamnuucaan shirarka looga soo horjeedo dowladda federaalka ee Soomaaliya maxay dowladda federaalka ee Soomaaliya ku mutaysatay in maamulka koonfur galbeed uu qaado tilaabadani warkayaga ayaad ku daawan doontaan ciidamadii abid ugu badnaa oo ku biiraha dagaalyahanada al-shabaab kana goostay maamulka Jubbaland maxaa keenay xilligan in ciidamo intaasi gaaraya ay ku biiraan dagaalyahanada al-shabaab xilli dowladda federaalka ee Soomaaliya ay dagaal xooggan kula jirto dagaalyahanada al-shabaab misal la isdhihi karaa ciidamada ku sugan magaalada Kismaayo ee hogaamiye Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe waxa aad ugu badan ciidamo ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab haysatay tuunka ciidamadani ku biiray dagaalyahanada al-shabaab ay ka qabaan bulshada ku dhaqan deegaanada Jubbaland siday soo arkaan dadka dhaliila siyaasadda Axmed Madoobe warkayaga ayaad ku daawan doontaan madaxweyne Farmaajo oo la filayo inuu kulan la qaato jaaliyadda Soomaaliyeed ku dhaqan dalka Mareykanka maxaa la filayaa in madaxweyne Farmaajo uu kala hadlo jaaliyadda Mareykanka ku dhaqan ee Soomaalida xageesa tagaya oo jaaliyadaasi oo kula kulmaya sidaysa jaaliyadaasi u arkeen badbadii xalay madaxweyne Farmaajo uu ka jeediyay shirka qaramada midoobay warkayaga ayaad ku daawan doontaan intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorkarona warkayaga daawade haddii uu kugu cusub yahay channelka like saar subscribe ku aad si aad u hesho warkayaga dhammaystiran haatana ku soo dhawaada warkii oo fidsan maamulka koonfur galbeed ayaa mamnuucay shirarka ka dhanka ah dowladda federaalka ee Soomaaliya maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa bilaabay qorshe ka dhana ama ka hor istaagaya shirarka siyaasadeed ee mararka qaar lagu qabto deegaanada maamulkaasi kuwaasi oo ka dhana dowladda federaalka ee Soomaaliya wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta maamulka koonfur galbeed Maxamed Abuukar Cabdi ayaa sheegay in maamulka uusan marnaba ogolaan doonin in guud ahaan deegaanada maamulka koonfur galbeed lagu qabto shirarka siyaasadeed ee ka dhanka ah dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa uu ku wargeliyay dhammaan maamulada degmooyinka uu gacanta ku hayo maamulka koonfur galbeed iyo saraakiisha ciidamada inay fuliyaan amarkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha isla markaana aan la ogolaanin shirarka ka dhanka ah dowladda federaalka ee Soomaaliya wasiirka ayaa ku anjabay in qaswadayaal ay u aqoonsan doonaan cidii qabata shiraan lagu soo wargelin wasaaradda amniga iyo tan gudaha ee maamulka koonfur galbeed go'aankani ayaa imaanaya xilli maalmo ka hor magaalada Baydhabo kulan ay ku yeesheen odayaal iyo siyaasiyiin dowladda Soomaaliya ku eedeeyay go'aankii ay ku xayirtay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa waxa uu ka mid yahay maamulada ka jira dalka ee sida weyn ula dhacsan siyaasadda dalka ay ku maamulayaan madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya marka loo eego maamulada Jubbaland Puntland oo si weyn u dhaliila madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya go'aankani ayaa waxa si weyn u soo dhaweeyay in badan oo kamid ah bulshada ku dhaqan deegaanada maamulka koonfur galbeed dhawaan ayay ahayd markii halkaasi uu gaaray ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo kulamo kala duwan oo halkaasi kula yeeshay waxgaradka deegaanadaasi iyo maamulkaasi ay ku qanceen qaabka dowladda federaalka ee Soomaaliya ay wajahayso siyaasadda dalka iyo in maamulka koonfur galbeed dowladda federaalka ee Soomaaliya ay siinayso ahmiyad iyadoona doonaysa inay ka hormariso waxyaabaha aasaasiga ee markaasi ay u baahan yihiin bulshada ku dhaqan deegaanadaasi ciidamadii abid ugu badnaa ayaa ku biiray dagaalyahanada al-shabaab kana goostay maamulka Jubbaland wararka inaga soo gaarayo magaala madaxda ku meel gaarka ee maamulka Jubbaland ee Kismaayo ayaa sheegaya in ciidamo gaaraya 350 askari ay ku biireen dagaalyahanada al-shabaab iyagoona ka goostay maamulka Jubbaland garabka Axmed Madoobe ee ku sugan magaalada Kismaayo ciidamadani ayaa waxa la sheegayaa inay gaareen deegaanada ay maamulaan dagaalyahanada al-shabaab halkaas oo si weyn loogu soo dhaweeyay
muddooyinkii dambe magaalada Kismaayo ayaa waxaa ka taagnaa guux ah in ciidamada maamulka Jubbaland ee garabka Axmed Madoobe ay aad ugu badan yihiin ciidamo ka tirsan dagaalyahanada Al-Shabaab kuwaas oo inta badan dhibaatooyin ka geysta gudaha magaalada Kismaayo. sidoo kale ma aha markii ugu horeysay oo ciidan ka goosta garabka Axmed Madoobe ay ku biiraan dagaalyahanada Al-Shabaab. horay waxaa dagaalyahanada Al-Shabaab ugu biiray ciidamo gaaraya ilaa iyo 30 kuwaasi oo watay gaadiid ay kala goosteen garabka Axmed Madoobe ciidamada uu maamulo ee ku sugan gudaha magaalada Kismaayo. ciidamadani ayaa waxa ay ka duwan yihiin ciidamadii hore waana kuwa khaaska u ah Axmed Madoobe ee lagu magacaabo Daraawiishta Jubbaland si weyn wala dhacsana. arrintani ayaa waxa ay walaac ka abuurtay bulshada ku dhaqan deegaanada Jubbaland iyo guud ahaan dawladda federaalka ee Soomaaliya. dadka ku dhaqan deegaanada Jubbaland ayaa waxa isla dhexmarayaan in aan marnaba la aamini karin dhammaan ciidamada uu haysto Axmed Madoobe isaga laftiisa marar badan siyaasiyiinta dhaliila siyaasadiisa ay ku eedeeyeen inuu yahay mid ka mid ah dagaalyahanada Al-Shabaab. arrintani ayaa waxa ay u muuqataa mid caqabad hor leh ku noqonaysa dadaalada la doonayo in lagu xalliyo deegaanada maamulka Jubbaland iyo hoggaanka Jubbaland oo uu doonayo Axmed Madoobe markii saddexaad in si xoog ah loogu caleemo saaro gudaha magaalada Kismaayo halkaas oo doorasho aan loo dhamayn oo isaga dib isu doortay uu ku qabtay gudaha magaalada Kismaayo. dawladda federaalka ee Soomaaliya oo la daala dhacaysa dhibaatooyinka ka taagan deegaanada Jubbaland haddii ay ahaan lahayd xagga muranka siyaasadeed, amniga, waxbarashada, dhaqaalaha iyo bulshada ku dhaqan deegaanadaasi oo aan haysanin dhammaan kaabayaasha nolosha ayaa haddana waxaa soo baxaya warar kala duwan oo sheegaya in halkaasi dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ka wado dadaalo ay ku soo dhisayso deegaanada dhibaatadu ay daashatay ee Jubbaland. ila hoose oo aan helnay ayaa sheegaya in gobolka Gado dawladda federaalka ee Soomaaliya maalmaha ay ugu soo aadan ay doonayso halkaasi inay ka samayso maamul ka madax bannaan kan Jubbaland. walow muddooyinkii dambe halkaasi ay gaarayeen ciidamo ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya kana tagay gudaha magaalada Muqdisho kuwaasi oo sugaya amniga deegaanadaasi. arrintani cusub ee soo korortay ee ah ciidamo intaasi tiro leeg inay ku biiraan dagaalyahanada Al-Shabaab ayaa geesta kale waxa ay walaac kale ku abuurtay siyaasiyiinta sida weyn u dhalishan hoggaanka Jubbaland kuna sugan deegaanada Jubbaland kuwaas oo la sheegayo in laftooda ilaaladooda ay adkaysteen isla markaana ay ka baqayaan in weeraro lagu soo qaado iyagoo ku sugan deegaanada Jubbaland. dhanka kale qaar ka mid ah siyaasiyiintaasi oo la hadlay warbaahinta ayaa dawladda federaalka ee Soomaaliya marar badan ka codsaday in la sugo amnigooda. madaxweyne Farmaajo ayaa la filayaa inuu kulan la qaato jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Mareykanka. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo ka qayb galaya shirka sanadlaha ee wadamada xubnaha ka ah qaramada midoobay ee ka soconaya magaalada New York ee dalka Mareykanka ayaa khudbad taariikhi ah oo halkaasi uu ka jeediyay waxa uu kaga hadlay dhinacyo badan isagoona dalka Soomaaliya sheegay in la daala dhacayo dhibaatooyin badan oo ugu horeeyaan farigelin ay shisheeye iyo sidoo kale inay jiraan saboolnimo baahsan. sidoo kale waxa uu dhanka kale xusay inay jiraan qataro xagga amniga ah oo ay gudaha dalka Soomaaliya ka geysanayaan dagaalyahanada Al-Shabaab oo dagaal xooggan ay kula jirto dawladda federaalka ee Soomaaliya. geesta kale mar uu ka hadlayay Kenya sheegashada beenta ay sheeganayso badda Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya inay ka dhursugayaan go'aanka maxkamadda ICJ ee qaramada midoobay Soomaaliyana ay tahay xubin ka mid ah qaramada midoobay isla mar ahaantaana ay ku qanacsan tahay go'aan kasta ee ka soo baxa maxkamadda ICJ isagoo sheegay in halkaasi aan loo dhaafi doonin oo aysan jiri doonin wax wada hadallo hoose oo ay galaan dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo dawladda Kenya. sidoo kale dalka Mareykanka gudihiisa waxaa ka socdo qabanqaabooyin lagu doonayo in madaxweyne Farmaajo uu kulamo kala duwan oo kula yeesho jaaliyadda ku dhaqan halkaasi. jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Mareykanka ayaa khudbadii madaxweyne Farmaajo waxay u arkeen mid taariikhi ah iyagoona aad u soo dhaweeyay sidoo kalena waxay aad ugu farxeen go'aanka dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ka qaadatay kiiska badda Soomaaliya kala dhaxeeya dawladda Kenya. qaybo badan oo ka mid ah dunida dacaladeeda waxaa ka soconaya soo dhaweyn ay dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ku mutaysatay go'aanka ay ka qaadatay kiiska badda Soomaaliya kala dhaxeeya dawladda Kenya.
madaxweyne Farmaajo ayaa la filayaa in jaaliyadda Soomaaliyeed ku dhaqan dalka Mareykanka uu kala hadli doono waxyaabo badan isagoona la filayo inuu ku booriyo in dalkooda ay maal gashtaan isla mar ahaantaana wax kasta oo ahmiyada ay siiyaan sidii dalkooda oo uu soo kaban lahaa iyo geesta kale inuu warbixin buuxda uu ka siiyo halka uu marayo xaalka wadanka. daawadayaal guud ahaan warkii ood ka daawanaysaan Danan 24 TV waa naga inta